Maxaad ka taqaan Valentine's Day ama maalinta jacaylka? Waa maxay asalka ama sheekada ka dambaysa maalinta jacaylka? Muuqaalkan dhamaystira kuna soo bir channelka haddii aad ku cusub tahay. Maalinta 14aad ee bisha Febraayo waa maalinta ku caan baxday maalinta jacaylka. Maalintaas oo dad aad u badan ay xusaan, miisaaniyad iyo kharash badanna ay ku baxdo, zinaduna aad iyo aad u faafto habeenkiisa. Haddaba maalintaas ayaa la yimid sheekadee bayna ku caan baxday. 13, 14 iyo 15 bisha Febraayo waxay ahaayeen maalmo la qabto dabaaldeg loo yaqaano Lupercalia ay ku xusi jireen Roomaanigii hore ee qadiimka ah, hadda dalka Talyaaniga loo yaqaano. Yeedin wujisay labadii Romulus iyo Remus oo ahaa kuwii asaasay Roomaanigii hore. Haddaba markii ay Kiristiyaanku la wareegeen Rooma, waxay kaniisadu isku dayday inay mamnuucdo dabaaldegaas, laakiin way ku guuldareysatay, waayo dabaaldega Lupercalia waxa uu noqday dhaqan dadka Roomaaniga ah ku dhex faafay. Mamnuuciddu markay adkaatay, Baadari Gelasius waxa uu go'aamiyey in dabaaldega Lupercalia lagu bedelo Valentine's Day, dabaaldega loo yaqaano. Waxa isweydiin mudan, Valentine waayo? Sidoo kale, maxaa maalintaas loogu magac daray Valentine's Day? Valentine waa mid ku noolaa Rooma maalmihii uu haysanayay Claudius laba. Taliyahaas waxa uu ka mamnuucay ciidankiisa guur, isagoo aaminsan guurku inuu ciidanka dib u dhigayo. Arrinkoo sidaas ah ayuu Valentine ciidanka iyo gabdhaha rabaan ay jecel yihiin si qarsooni ah isku guurinayay oo isku meerinayay. Haddaba markii uu Claudius maqlay arrinkaas, waxa uu amray in xabsi la geliyo Valentine kadibna la dilo. Dilkiisu waxa uu ahaa 14 Febraayo 270. Waxa la sheegaa markuu xabsiga ku jiray Valentine inuu u qoray warqad jacayl gabadh soo booqan jirtay oo ka warhayn jirtay. Sidaas markaan u garanay asalka maalinta jacaylka, waxaad ii sheegtaa adigaaga muslimka ah ee rajaynaya inaad xusto maalintaas halkaad kaga jirto sheekada. Waxaad ii sheegtaa halkay islaamnimo kaga jirto sheekada. Islaamnimo iyo maalinta jacaylka waa laba aad u kala fog oo marnaba shaqo isku lahayn. Si qaldan ha ii fahmin, jacaylka u dhaxeeya nin iyo xaaskii waa arrin, maalinta jacaylkana waa arrin kale oo ka duwan, ay gaalo noola timid. Nabigeenuna sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri, man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Qofka ummad amba qolo isku ekeysiiya ayaga uunbuu ka mid yahay. Ugu dambayn, adaan kuu daaye kala dooro islaamnimo iyo maalin gaalo.